الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. waxaan u malaynayaa waxa uu ugu dhib badan qofku inuu naftiisa ka sheekeeyo nin shujaac ah oo geesi ah oo sida akhuna jiiro kale unba arrinta ku fiicnaan lahaa oo xaqiiqadiisa ka warramay ilaahay subxaanahu wa tacaala hidaayadii iyo hanuunka uu siiyey allah u kordhiyo ilaahay baan u baryaynaa horto in ilaahay ku sugo ducadii uu dalbay baan ilaahay u dalbayna u weydiinaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaarsiiyo والدي رحمة الله عليه أباي شيخ علي صوفي وحو مركي وفاده هل كانوا هرتو كل انتي وهل كانوا كو اسيي والوالد رحمة الله عليه ماشان كو اسيي لكن حنون وحو كب اللوضي وحنون ملينا يا سيدتي يصدح دي مالها سياحيد مرة نقول أن أرضك أها مصر بان يعني يكب اللوضي waxaan intaa uga gol leeyahay sanadkaas ka hor ee uu xanuunku qabtay ee uu dhacay ee jalda ku yar furantay طالب العلم buu ahaa bishaan hadda culimo iyo fulaan iyo leeyahay buu galaan jiray marka qaarkiis marka uu darsiga inoo akhrinayo wuxuu jahliga dadka ayaa wax naga dhigay mooyee inaan wax sheegna ma baaboori jiray waxaan xusuustaa دوري سجاشن جر تقريبا وقت أنكو قياسي أو كتاب كشاطبي أو كن بقول دوري طبعا بعيدة وانتو حفظي أي ولي بوكرك كقبتي وهذا نكوع العلن جري ما لك ساخري جرون جري وداب عن نقول هذا نكوع العلن ومركا وحن كوذا وأرنتا وشيء بان دبتاجنا يا أخونا عبد الرزاق إنه طلب العلم والقرآن كجعيل كيسا ودبتها قنادو إلى أمانة دي إلهي القاضي أنا قوة الدوناي توفيق الله نوفجي أنا مقعيقا عبد الرشيد بالليلة الوالد مقعي سو مجرد أنا علي بالليلة علي ولكن طبعا لقب كمركز دنبه وشيخ علي صوفي نوالي يا شيخ علي صوفي هدي وده هذا وحن كبقى يعني أردت سبد شوي لأن تاريخ الوالد كعضون تيدي إسكت داية لكن وإسكت فعلا الله هيدو إن بدنا دتك ويدية إذن كوا بيسلا فهمينا يقولون إنك عربها قار كودية نودن على سعودي ومركان سيق لينو أنت صوفي يا صوفي وحاسي شيء إيش صوفي ذا سي ويدية ما لقب ما قبيل با ما فلان با وحاسي ويدية الصوفي يقول لي لأنه وبيسكت جيران با مش هتاسمر كلام كدقنا تقريبا isagaa waalidka ii sheegay oo noo sheegay sababta suufi loogu bixiyay iyadoo koobanna isagoo arday ah xamar ardadu markay yimaadaan bari hore laga hadlaya ardadu waa la jiri jiray guriga la geyn jiray guriga marka la geeyo gurigaas ay cuntada ka cunaan kutubtana culimada ka akhristaan laba cali ugu waaweyn oo sheekh aadan awliyahan sheekhu mashhuur ku noqday oo tafsiirka akhriyi jiray iyo sheekh Abu Bakar muallim mukarram oo isagu ahaa faqiih ahaa labadaasaa ugu baariz ahayd culimmada inta kutubta laga akhrisan jiray marka sheekh aadan baa si khaasa wuxuu uga warhayn jiray ardada oo isaga ku jili jiray oo meelaha ka jiray marka alwaalid raxmatullahi alayhi markuu shabaabka ahaa jidba xoog la gashay oo daakir badan buu ahaa isagoo cilmigii baranaya ayaa haddana waraciisii aad iyo aad badnay marka waxaa dhacday buu yidhi guri markii la geeyay haddiiba naag indhahayga ku dhacdo dib ugu noqon maayo saddex cisho afar cishaan iska gaajoonaya kadib baa sheekhi loo sheegayaa wadaadkii cali ahaa gurigii ma tegin maxaa yeelay inaagu baa saa iisoo hormaraysa buu maalintii dambe uu masaajidka istaagay waa meesha ay suufi dhalatay wuxuu yidhi sheekh aadan wuxuu yidhi reer xamar bay ku adneen reer xamar bay aayeen ayaa loo duceeyaa ninkan wadaadkan oo xerowgan cali suufi waaye cali suufi waaye guri bilcaan joogta haddii si arkom ma tegaayo يا لدعية قري بالعنجوجين جيناية مركز دقبة استاجو يروي أنا يا كحيناية وقري جيناية قري بالعنواجوك لكن ما أركايو سيدي با إلهي يقول نعمة يقولوا قري مركان تجو سجى إسرعنا وعما وضعنا دار بسوجوجنا عنتظر ماشى اللي يدقق سكوا هرك سيد ما كل النادي شوفي وبيجهر ويدي بقول سو شيخ يمر بقول شوفي علي صوفي كانوا هذا عرب تجي علي سومالي بيشوف بده شيء هل كان هذا شك قبض حانيجو
waxaan ku dhashay magaalo Harar Leyla oo Etoobiyadaas waddankan baan u maleynaya halkaas ayaa waalidkii madrasadii uu ka hayay halkaas aan ku dhashay anoo taqriiban hal sano jira ayaa la igu yiri baa la iga soo kaxay markaa ma xusuusto anigu sanadka waqtiga aan dhashay sida hadda baasaboorka igu qoranna waad la socotaan Soomaalideena badi waxa weeye 1 Soma bisha koobaad maalintii koobaad u baanaay ma gastay taas waa ka seesin Soomaalidu taa la mid ah waayahay laakiin waxa baasaboorka igu qoran 62 haddaan is yareeyana dadka waxaan ku idhaa inta badan sidii la ii sheegay 64 baad dhalatay baa la igu yidhaa laakiin markii aan baasaboorkii qaadanayn iyo xogay waa la isweynayn jiray dibadda markii loo baxay baasaboorkii la suma ogal marka ala kulli xaal kan oo baasaboorka aan isaga dayno 162 go marka ما قاد دكتور علي هدينو يران دون ملينا مركز سديساس تاعي لكن حقيقة هدي لو صار ما المهم واسكسو سعنيو ماشي هذا أن كو عقلي يستي وحوجي أن كو يرفهمي أن قرنيو وحمر ميلان صومر مرة يسكجرت دو ولا سوق حيدوكا ولا جي قال كيف بعد عيد حدني فرتي صومالي إلى آخره الوالد رحمة الله عليه وسردي أنا هاي الكاس أنا بيت مرة أن كجورنيو بولو بردميل إلى أنو دقني باجرتي أو هالك أن كوير عقليستي أو وحان كلا قرني يقولوا بردأت بانو قرنيا مركي دم بحمر باردو كوري كورلين كي هالك سيو أها رحمة الله عليه الوالد مسجد كا أو أساسي أو عبد الرزاق خشي كيني مسجد كا إلى يومنا هذا مقع الشيخ علي الشوفي والليلة سووا مؤقري تسوى دي شيء هذا وحورنجري هذا مسجد القرآن الكريم بالليلة كاسو بحيي كاسو نكون من تدي جري لكن ولا قد إلهي بقى بحي مركز دمبه هذا هو حبيس كان قتال حمر بوستجو شعل شوفي جي شعل شوفي بهذا الكتاب ومن الله عز وجل أرنت أو شوفي اللي هو مقعابي شيخ كليل لكن مركلان تاريخ الشيخ أن كشيكين إلى زوج لنتونا أنا مركل هالكاسان أنا يل أيوه حلقة والدك وفريسي وحن حسوستا يرى وحن كقبو صلاة مركل اللي قالوا إنه أنتم سوق حيو وصفك هرتي شيء فريسين جري waxaa halka ka qiyaasaya inaan ka yaraa leena toddobaad la isam sheekhuna aad buu sunnada ugu dadaali jiray marka anoo saas ayaan hadan xalaqii dacwadii khayrkii meesha ka socotay alxamdulillah arinta uu akhuuna sheekh Cabdirazaaq uu tilmaamay ayaa ilaahayna waafajiyay quraankaasaan yaan u malayn maayo kullayba dibadaha Madiina waa laga tukan jiray 3 juz tahajjudka laakiin Soomaaliya kuma ogeyn inay iska jiraan waa laga yaabaa laakiin masjid caam oo la isu yimaada waxa ugu horeeyay hatta zaman alwaalid saddexda juz oo tahajjudka lama tukan jirin oo dadku ma bay aqoon laakiin juzka taraawixda wali kama uusan tagin ilaa haddana sidii baan insha Allah aan ku taaganahay marka maxaan kaloo ku sheekaya sheekh saddex shay oo tajaarib alxayaa ay ku bartay calamatni alxayaa wallahi ma bakala xusuusan karo tajaarib alxayaa yani de mar ardanimada soo maray oo aan Masar joogay oo waxyaalo badan ay soo mareen وإلهي يوافجي خير بدن تجارب تسوى صومري مركي دمبي أو أنو دحق لي دعودي إيو أرنتي صومالي أنا مربضا وأنا صومرين يعني ما سو مشي كرا يعني هذا أنا بالنسبة لي دعوتها أنت أن كنت الرودي وده مرينا ندي وحياة فربضا وأنا صومرين لكن وقتك أسكت ديرانا يهدي ما أركتي مركلا يسكن نقدون تا وحيقوا عبس بدنا مال الروا ها كوكو يابك بدنا كوكو عبس بدنا والله ارتعب عبسيده هرتو عيب ما هو النبي الله موسى بإلهي وخوف بقوت مامي ولا مدبرا بوير سوما لا تخافنا إلهي واير ولا كعب صدا وعبسيده ويسكجرته لكن هبين بكي أي قلدي إيه مادين أنا سستلو رجري أو أنت قللا سودك أنتو كدعي وضع تاني حمر سجال سديتني سجال كي هاي مالين خميسة ومالين تي عيد أهيد عيد بأهيد عيد الأضحى بأهيد عيد حج كي أهيد جمعة نوائي كحكتي يا وها دولة قررتي أو قرار قادي إن لنا حرو علماء مالها سون أدو حوجي هذا جرتي أنا حوجي بريهاس هذا الكيك وسكير بدنا أو محمد هذه يرجع قراع جري المهم وحكى لنا ما هينا وحا كول والسنين Soomaali badan oo Kristan sheegatay baanu aragnay oo bahalka xiratay oo ileen in fara badan oo in Yurub ku tagta doonaysa un ba iska jirtay gadhow hadhow masaajidadan ku aragnay xagga markaan Yurub tagnay
laakiin markaa hore khawf iyo cabsiin waxaan nidhaa ma dadkani la gaaleeyaaba arrintaasaan marka aad uga hadalay siday u dhacdayba nin oo kaniisadda madax ka ahaa baa la dilay ilaahay baa nooga saray majmacana waan ka markhaati gelinaya shaqo kumaanaan lahayn mana aanaan amrin mana aanaan ogeyn tii baa dhacday cid ka dambaysa allaa og adigu sababtaasaa laga dhigtay aroortii bay noo yimaadeen aniga mixraabkanoo fadhiyay i yimaadeen saddex ninoo hadda aanan sheegayna laga yaaba hadday qaarkood joogaan meesha hal meelahaas in dhibaato ma sheegayo magacooda meeshaa laigu yimid waxaa la yidhi dawladdu waxay rabtaa odayaashu inay maanta kula shiraanoo qalalaasaa yar jiro waxa weeyaan qalalalahaas awgeed in wixii khudbada aad sheegi lahayd lagala tashadaa maanta lagugu yimid nakeen waxaan hadday xarig ay tahay ii sheega aan alaabteeda soo qaatay ma jirtaa leer waxaas xaasha lillahi xarigaad sheegaysa waa maxay war waxaas ma jira sheekh nakeen baabuurka ay soomaalida ay oran jireen xajiyad oran jireen oo bikaabta ahaa ayay wateen kii baa la ishaaray meeshii baan tanay sheekadiiba mar alla markay meeshii geliyeen way isbedeshay nin burus la yidhaha burus ma aqaan hadduu nool hadduu dhintay burus baa la yidhaha nin aad u madow oo indhihiisana gaduudan yihiin buu ahaa kaasaa la ii dhiibay nimankii cadcadaa ee qaarkood iska fiicnaan qaarna wejigooda aqayna way waaba iga tageenba burusaa la ii dhiibay burus waa i kaxeeyey qol yaroo ma garanaysaa oo bir ah horta wixii aan haysto dhan uu yidhi dhig halkaas saacadda dhig maxay dhig oo maxay sheekadii iyo qoladii ila tashan lahayd aawe maya sheeko galaa jirtee alaabtaad halkaa dhig waa nin lagu talagalo burus baa la yidhaha magaciisa masaa la yidhaha ma aha wax oo halkaasa adigu le marka habeenka ugu khawf badnayd suu sheegaayo maalintii ku xigtoo jamcadii baa mudaaharaad dhacay sheekh cabdirasaaq waa ku jiray soo maaha waa ku jiray dadkiibu ku jiray maaragtay mudaaharaadka sameeyey berigaas waxyaalahan la duuduubay iyo ma jirinoo laakiin thawrada hadda carabta ay sheegaan rabiic alcarab iyo fulaan waa annaga uga horreynay waxaasoo dhan ummaddii markii culimmadii oo dhan sheekh ibraahim suuley sheekh ibraahim fulaan kalaanku hal mar la wada xidhay dadkii waa kaceen laakiin masjidka markasuu ahaa ra'iisuu ahaa halkaasaa la isku urursaday adigu mudaaharaad baa dhacay dhibaataa dhacday dhiig baa dhacay insha allahu intii dhimatayna allah u naxariisto laakiin ma annaan ogeyn waa bixinay habeenkii oo dhan baa marka xabado dhacayeen dhulka qol mugdi ah oo biro ku xiran oo aan dariishad lahayn oo 18 ilaa 20 aan u malaynaya lagu caburiyey ayaa waxaa naga ag furantay rasaas xoog badan markaa shakiba ma soo gelin in ay dee maadaama ay xaalad halkaa marayso in lana laynayo taqriiban habeenkaas walwal baa iska yar jiray hadday taa nagu filan tahay waa ka almuhim ilaahay subxaanahu watacaala marxalay ahayd min almaraaxil wax badan aan ka faa'iidaysanay waxyaalahan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ahaa nin baa la soo xidhay habeen ma la soo xidhay ninka marka qolkaygaa la keenay waa mar dambe ninkii uu seexday annana waa seexanay quraan buu bilaabay wuu hurdaa suuratu albaqar uu akhriyey aali cimraan buu akhriyey suuratu annisaa buu akhriyey marka uu marayo إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما تنور واي تلبذنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا واي ثم halka xataa markuu maray wuxuu tii hore waa iska ilaali waa sii socdaa wuu hurda ninkii wuu hurda aniga waa soo jeedaa waa la yaabanahay subaxii baan waxaan weydiiyey ninkii warniyahu qur-aankii xaalaad akhrinaysay waana hurdaysay wax u jiraan wallahi sheekh dadka un baa iiraa buu yidhi qur-aanka markaad seexataad akhrisaa baa lagu yidhi laakiin xaafid buu ahaa sidiisa kale xaafid buu ahaa laakiin wuxuu yidhi arrintaa wallaahi inaana ka warhaynin anna waa arkaa waa nin hurda yacni waxyaalihii cajaa'ibta lahaa ee sijniga igu soo maray ayay ka mid ahayd wa kalena waa jiraa laakiin wakhtigeeda lama hayo tawfiiqna allahna wafajiyo assalaamu calaykum